بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله maanta waxaa idinla wadaagi doonaa mowduuc ku saabsan saaxiibtinimada. saaxiibtinimo markaa maqashid maxaa niyadada kusoo dhacaya? saaxiib macnaheeda saxda ah waa qofka noloshaada matalaya, yani muraayadii lagaa daawanayay. qofka marka la arko adigana lagu dhahayay qofkan maadaamuu la socdo waa qofkan. saaxiibtinimadu waa hal qalbi oo ku kala nool laba jasad. saaxiibka boosku kuu buuxin karo iyo wuxuu kuu tari karo cidna kuuma tari karto. ahlulcilmi waxay dhahaan badsida macaariftiina ama asxaabtiina iyo dadka aad garanaysaan, laakiin yaraysta saaxiibadiina. la-anno qof kasta intaa saaxiib ka dhigatid sirtaada iyo guulahaaga iyo waxaad damacsan tahay iyo ahdaaftaada iyo mukhadadaadkaaga nolosha midna lama wadaagi kartid. saaxiibku waa midka marka dadka dhankaa tagaan eed kuftid gacanta ku qabanaya oo ku dhahaya istaag. saaxiibku waa midka kugu dhiirigelinaya inaad wax kasta samayn kartid. saaxiibku waa marka midka xilliga diiqa iyo dhibka ku haysto ku garab istaagaya. saaxiib lama dhaho qofka kula jooga xilliga farxadda oo hadhow markay dhibku soo gaartana aada waayeysid. saaxiibku yani wax lagu sifeeyo oo kasta uu ka wen yahay. insha allah waxaa soo qaadanaa qisadaas waxaan akhriyay maybe 10 sano ka hor. waxaa ka sheekeynaya nin dadkan maaragtay wadaadada meydka dhaqa. wuxuu yidhi casar ayaa waxaa laigu yeeray in aan dhaqo meydkii markaa u imid waa wiil yar oo dhalinyaro ah. waxaa la socda meydka, dadka la socda waxaa ka mida wiil wuxuu de ahaan leegyahay wiilka dhintay, aada u ooyaya, aada u qaracansan. markaasa waxaan ku lahaa buu yidhi, marka wuxuu la galay qolka lagu dhaqayo meydka. markaasa waxaan ku lahaa buu yidhi sabir, ilaahay ha u naxariisto walaalkaa. anoo xusuusanayo isleh yani labadan wiil waa walaalo ayaan isiri buu yidhi. haddana waxaa xasuusanayay buu yidhi walaalkay ila dhashay oo aan aada u kala fognahay. markaasaan lahaa buu yidhi iyagoo walaalo ah baysa isu jecel yihiin, uu ugu oynayaa dhimashadiisa. yani anigana walaalkay aada buu iga fogyahay. markaasu wuxuu iga yiri buu yidhi, markuu ku yiri ninku ilaahay ha u naxariisto walaalkaa aamus. markaasuu ugu yidhi walaalkay ma ahan, laakiin wax kasta wuu igala weynaa, walaaltinimo kastana wuu igala qaalisanaa. markaas waxaan ku yidhi muxuu noqon karaa hadduuna walaalka ahayn qofka asa ugu weynaysa? wuxuu yidhi wuxuu ahaa saaxiibkay ilaa maalintan, yani daris bay ahaayeen. banaanka u baxnay, banaanka ku ciyaarnay, dugsina la geeyey, kubadda isla ciyaarnay, dugsi hoose, dugsi dhexe, jaamacad, dugsi sare. yani xitaa waxay ka wada shaqeeyeen hal shirkad. waxay guursadeen 2 gabdhood oo qaraabo ahaan ilmo habreed ah. waxayna degeen 2 guri oo iska soo horjeeda. yani waxay ahaayeen kuwo shaqada wada aada, ka wada yimaada, farxadda iyo murugada iyo wax kastana isla qaybsada. marka shiikhu wuxuu yidhi wiilku markaa dabcan sheekada ugamu sheekayn. maalinkaas wiilkii wuu ooyay, wuu qaracmay, wiilkii waa la aasay, waa laska soo laabtay. wuxuu yidhi habeenkii markaan gurigayga tegay waxaan ka fikirayay yani saaxiibtinimada saas ah ilaa heer, le-ano qabrigii markii la dhigay meydkii ayaa laga furfuri waayey, ku dhegay, ku ooyay. war ilaahay ka cabso, ilaahay ha u naxariisto, ilaahay ha ku sabir siiyo. wuxuu dhahay galabkii xilligii ku aadanaa xilligii ayaa waxaa la iigu yeeray janaaso kale. markaan u imid meydka weji ahaan wuu igu yaalaa. waxaan isri buu yidhi halkay ku arki jirtay wiilkan meydka ah? waxaa la socdaa aabihiis oo aada u murugaysan. markaasuu wuxuu igu yidhi wallaahi sheikh, shalay bay ahayd markaa dhaqaysay saaxiibkiis xilligan oo kale. markaasaan xasuustay buu yidhi. markaas waxaan ku yidhi buu yidhi iga sheekee yani qisadooda labadan wiil.
wuxuu igu yiri labadan wiil isla soo koreen ilaa yaraantoodii ilaa dugsi sare heer jaamacadeed isla shaqeeyeen isla guursadeen way dirseen yani wax kasta nolosha waxay ku ahaayeen hal qof. wiilka markuu dhintay ee la aasay kii hore kan dambe gurigiisu iska tegay meel buu iska jiifsaday. galabkii xilligii ku aadanaa xilligii saaxiibkiis dhintay ayaa waxaa la isdhahay haloo kiciyo salaada casar mise waa meyd. wuxuu yiri sheekhu waxa igaga sii darnaa intaas oo dhan markaa qaadnay meydkii ingeyna quburaha si aan usoo aasno ayaa waxaa yani banaanaatay meesha maaragtay qabrigii aan shalay wiilka ku aasnay qabriga boos ahaan uga xiga. yani wuxuu leeyahay ilaa shalay maybe inay dhimanayeen lasoo aasayey laakiin booskiisii uu saaxiibkiis kula darsi lahaa wuu u banaanaa. waxaa u dhexeeya oo keliya derbiga midna xaggaanu kaga aasan yahay midna xaggaan. adduunka waxay ku ahaayeen saaxiibo qabriga waxay ku noqdeen daris. insha allahna maadaamay ahaayeen dad muslimiina waxaa u rajeynaynaa jannadan inay ku noqdaan saaxiibo. saaxiibku wuxuu matelayaa noloshaada xaqiiqatan. ninbaa wuxuu la saaxiib ahaa nin muddo sanad ah. sanadkii kadib uu u yeeray wuxuu ku yiri kaalay aniga adiga ma wada socon karno saaxiibna ma ahaan karna iska tag. wuxuu dhahay maxay igu diidaysaa anigoo ku jeclahay saaxiibkii baa tahay wax kastaan kula wadaagaa wax kastaan kula qaybsadaa so anaga saasa oo saaxiibada. wuxuu yiri muddo sanada ayaa saaxiiba ahayn maalinna igumaadan dhihin waxaasaa ku khaldan tahay ama halkaasaad ku xun tahay iska hagaaji. saaxiibkuna waa kan kuu sheegay yiri xumahaaga meelaha a ka liidatid kuguna dhiirigeliya guulahaaga. markaas wuxuu ku yiri aniga adiga saaxiibo ma noqon karno sababtoo ah muddadaas sanadkaa maalina imaadan dhihin halkaas baa ku khaldan tahay. saaxiibku ma aha midka gadaashaada ka hadla waa midka hortaada wax ka sheega. wuxuu kuu sheegayana waa saaxiibka waa wax run ah. ma ahan ra'yi u cabiraya sida dadka kale oo kale leanna wuxuu garanayaa ruuxdaada. marka hadduu saaxiibka intuu gacanta ku qabto ku dhaho saaxiib halka iyo halka waad ku khaldan tahay rumayso oo maqal hadalkiisa. saaxiib ha u qaadan qof kasta. wiilka kubadda kula ciyaara wiilka ajaacad isla dhigataan wiilka aa meesha ka wada shaqaysaan walow badi raggu ayna sirtooda sheegin oo ayna qof kasta la wadaagin. laakiin dumarka waxaan leeyahay gabar kastoo meel kaaga soo horbaxda ta kula shaqaysa ta dariskaaga ah tana wax isla barataan iyo mid kasta ha u dhiibin wixii aa sir haysay oo dhan. laakiin yeelo hal qof oo aamin ah oo aad naftaada ku aamintid sirtaadana ku aamintid waqtiga dhibta ku haysana aa maaragtay iyada la xiriirtid oo aad ka helaysid yani farxadaada iyo wixii aa u baahneedba. xitaa markii dhibku qabsato ma ahan dhibtu masiibo keliya markii ay kugu dhacdo wax la dhaho mataqaanaa yani cibaadaadka oo kale lianna qofka bani aadamka ah iimaanku waa yasiid wayanqus yasiid bidaaca wayanqus bilmacaasi. waa inaad leedahay saaxiib aa ka heli kartid kugu soo celin kara mixwarkii iimaanka iyo daacadii macaaneed. aa isla ducaysataan aa isla cibaadaysataan aa isla tukataan aa qur-aanka isla akhridaan aa basmo qurux badan nolosha ku wada yeelataan. haddii ilaahay idinkala oobsadona xusuus fiican aa ku kala tagtaan. haddii aa kala fogaataanna markasta aa ahaataan sidii laba qof oo isla joogo kale liannu saaxiibtinimadu ma ahan qofka 24 saaca aa hor fadhidid laakiin saaxiibka adoo ka maqan wuu kuu noqon karaa wax kasta noloshaada. saaxiibtinimadu ma ahan wax lasoo koobi karo laa qiso walaa dhacdo walaa yani gabay wax lagu soo koobi kara malahan. waxaan idiin rajeynayaa kheyr waxaan idiin rajeynayaa saaxiiboon wanaagsan oo daacada ilaahay aa ku wada rafiiqdaan jannadana biidni illaah aa noqotaan saaxiibadii adduunka sidaa ugu aheedeen biidni illaah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.